ardayda galaaska afraad ee dugsiga Kandhaleed ee magaalada Burco ayaa xaflad iyo casho sharaf u sameeyay macallimiinta dugsigaasi Kandhaleed wax ka dhigta. Xafladan oo ahayd mid bilan oo boqoran ayaa waxay ka dhacday 9 habeenimo xalay hotel Haas ee magaaladaasi Burco. Xafladan waxaa ka soo qayb galay maamulayaasha dugsiga iyo macallimiin, doomiyaha jaamacadda Alfa, maamulayaasha ka kala socda dugsiyada qarni iyo sidoo kale dayaxa. Waxaanay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu, iyagoo dardaaran iyo ducana u diray ardaydaasi. دوا ملاه ولي دوا لنا ولي ومقشنا سنة كواحد مده بلاي ما يدعينا نسيف يعني عطي وطن بلاي ما يدعونا هذه وصف كلا حلو هذه فيسبوك كلا حلو وحن فيليا وهرمر كوده وقاعد من فيليا وحيرات ماشي كوقتها ما أغنت واتقف الراعيسة هذه مركز داير قولك استاكم حساب توصل بالله صادر دونا معلنك وصادر دونا ده واحد نص صباح دكتور مرني معلم مرني بالشواظ مرنا بين نص صباحي مركز واحد لا ثاني يقول بينو قاعدني أنا كنت ألقى الله كوين الدنبية كوين مكوا سيان نفتينا وحيان براني امتحان نقول شغالين لاين وكريستيان أنا كقول عندنا وبعان ما يصير إلى يوم بعض بعانته تأثيراتها وحن كراين راعينا يا هذه لقى حلقة يا وايم كمدة كير كديب لأنه فانفور كقلنا شبينه aqoonti marka macnaheedu ma aha way dhamaatay ma aha waa qofka ka muuqata ma aha taw darajada ku keeno inaad ee keento aqoon ma aha inaad dhig keentana aqoon darro ma aha waa habeen maamuus leh waa habeenada runtii kamida habeenada xasuusta galaya munaasabad runtii muhiim weeye ardaydii فورada ee dugsiga sare Kandhaleed munaasabadan aynu ku sagooteynaa waxa weeye munaasabad runtii muhiim ah waana munaasabadaha aniga xasan ahaan iyo maamul ahaanba dareen gaar ah igu reeba waxaan filayaa munaasabado fara badan oo la mid tan caawa aynu halkan ku wadno ayaan soo muxuu ahaa aan ka qayb galay habeenka runtii munaasabadahaas waxay igu reebaan raad sababtu waxa weeye ardaydii aanu 4 sanadood wada joognay oo caawa si dhaweynayo caawa ay farxad inuu imaado xaflada ardayda foofooray Kandhaleed ay ku maamuusayaan macallimiintoodii iyo maamulkoodii runtii wax soo baray runtii waan uga mahad celinayaa macallimiinta iyo maamulka sida akhlaaqeedka fiican sida aqoonta fiican ay u soo dhiseen runtii ardayda runtii wax lagu galshadana runtii waxa ugu qaalisan dad baa ugu qaalisan runtii macallinku runtii inta badan markan ka hadlayno macallinku waa shamac baxaya shamaca runtii marka wax ku iftiinsato runtii uu dhamaadaa marka macallinku runtii wuxuu ka dhigan yahay shamaca iftiimaya runtii dhamaanaya cidda ka faa'iideysataana waxa weeye qofkii wax ku akhristay waxa ku midaysantihiin ardaydii Kandhaleed waxa ku midaysantihiin wadaagtaan magaca Fonfor waxa ku midaysantihiin inay muddo 12 bilood wax soo wada dhiganeyseen laakiin waxa ku kala duwan tihiin qof walba wixii uu kala tagay intii uu fadhiyay galaaska macallimiinta aadii nin odayaba inay yar guursaday miyaa ka daya ninkii odayga ahaa markuu inantii yareed guursaday de nin oday waa garanaysan oo waa oday de waa inay yar waa curdin dabeetana habeen walba deelan waa oday wuxuu yiraahdaa wallahi inaan kula soo bixi iyaduna way cabsataayo waxay tiraahdaa kada la sabixin markii dambe waxay socotaba intii hooyadeed bay arintii u sheegtay waxay tiri hooyo arintaas ay haysto habeen walba baqashadaas aan ku suganahay inta uu tagtay way ku tiri waxaad u tiraahdaa la soo bax waxaad hayso foonfoorka waxaan leeyahay waxa aysan la soo baxay insha Allah xilligan ay ardaydu ducada iyo dardaaranka ka qaateen macallimiintooda ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay hal maalin ka hadhay imtixaanaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland wariye Maxamed Wardi Somali Cable TV Burco.